ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ka bilaabay howlgal adag oo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dowladda Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu bagnaa dhigtay wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana ciidamada ay ahaayeen kuwa maalmihii ugu dambeeyay lagu tababaray magaalada Muqdisho caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamada ayaa habeenadii ugu dambeeyay baaritaan ka waday xaafadda magaalada Muqdisho iyadoo ay ciidamadu baadhayaan gaadiidka iyo xaafadaha magaalada Muqdisho. ciidamada booliska Soomaaliya ayaa sanadkii loo soo dhaafay lagu amaanay adkeynta magaalada Muqdisho iyadoo Ramadaankii hore aysan wax qaraxi ka dhicin magaalada Muqdisho isla markaasina ay ciidamadu sababeen inayna wax qaraxi ka dhicin sugeyn ammaanka magaalada Muqdisho. ciidamada Soomaaliya ayaa waxay howlgal xalay ka sameeyeen xaafadda ku taala Cali Kiniin ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku qabtay dhalinyaro falal halkaas ka geysanayay. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa habeen walba howlgal ka sameeyay magaalada Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Yariisow ayaa isagana ku sugnaa magaalada Muqdisho caasimadda maamul goboleedka Puntland ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay sugayeen ammaanka magaalada Muqdisho. Naasir Cabdulqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badda Cas 24 TV magaalada Hargeysa.